maxaa sababa qaraxyadan maalin walba aan ku weynayno dhalinyaradii mustaqbalka dalkani horumarin lahaa weli inta aad meel fariisatay ma isweydiisay maxayse kula tahay sababta mise jawaab ayaad u weysay ma dawba in maalin walba aan isku maydhno dhiigga dad Soomaali ah oo ay nidaamkeena dawliga sheeganayana uu noo sheego kuwii qarxiyay annagana waan qarxinay oo waan tooganay shacabka Soomaaliyeedna ay sidaasi ku qancaan maalin walba geeri iyo xabaal wadareedyo aan dul taagnaano yaa qaadi doona mas'uuliyaddan reer Muqdisho ay ku madheen dawladnimadu waxay noqotay mid muwaadiniinteeda noloshooda lagu gorgortamo iyagoona raxan u dhimanaya siyaasadda waddankeena waxay noqotay madaxweyne reerkaas hala siiyo ra'iisul wasaare reerkeena leh wasiirkaas annaga leh oo beesheena dulman 4.5 fadana magaala madaxda unukaale Somaliland waa muqaddas Hirshabeelle cadaaladi kama jirto oo waxa lagu xadgudbay nidaamkii qabaliga ahaa oo waxaan u dagaalamaynaa qabiilkeena doorasho qof iyo qabiil ah ayaan rabnaa thumma triple wallahi waan ka saaraynaa iyo shirbeeleedyo ay dadku ku awrkacsanayaan iyagoo danahooda gaarka ahna raba inay fushaan waxaa intaas si dheero ka sii muhiimsan weliga ma aragtay iyagoo ka doodaya waxbarashada sida loo horumarin lahaa xirfad sidii dadka loo bari lahaa si uu dhaqaalaha dalka u kobco wax soo saarka iyagoo ka hadlaya caafimaadka iyagoo ka hadlaya cuntada dhacday iyo daawooyinka dhacay iyagoo ka hadlaya ama iyagoo ka doodaya wax horumara waa maya laakiin mararka qaarkood waxay intaasba ka hadlaan marka kursiga mid ku fariisto iyagoona kala masayraya marka ay soo dhawaadaan doorashooyinkana ay xaaladdu noqonayso ka rogo laba saar oo kaarkii qabyaalada kor soo saar oo afkana ka xumbeey kuwa inaga liitana ku kici qabyaalad caruur ciroole iyo aayihii waddankana raxan ay aakhira ugu hooyanayaan mas'uuliyadoodana way ka indholaayihiin yaa allah istaakash Soomaali nasiib darana caruurta Soomaaliyeed nasiib darana hooyooyinka Soomaaliyeed oo nasiib darana Soomaaliya imtixaanka ina haysta weyna warbal dadkeena iyo dalkeena u fiirsada sida ay u nool yihiin iyo hadallada siyaasiyiinteena ay ku hadlayaan iyo sida annagana ay maskaxda inooga kufsadeen walaalayaal yeedan aan dalkeena uga aamusnay waxay ku heshiiyeen inay nalaayaan oo aan dhammaano faqri iyo gaajo iyo amni xumo iyo imtixaan dhammaantiisa iyo cidhiidhi farabadan ee nololeed iyagoona inta badan raadsanaya magac iyo maamuus hodantinimo iyo madaxtinimo aan marna loogu adeegaynin ummadda Soomaaliyeed laakiin walaalayaal ilaahay waa og yahay waxa ay nagu sameynayaan ee aan barino sidii nabi Yuunus calayhi salaam markii uu galay nimiriga calooshiisa uu ku duceystay la ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Soomaali dib badan way martay laakiin waxaa jira wax kale oo aanan lagu eedeyn karin yeyda kaliya oo ah inaga laftigeena ayaa waxaan u kala qaybsanay qabyaalad aan waxba ina taraynin tan iyo 60kii inay wax naga halaysa mooyaane mararka qaarkoodna kama liidano kuwa ina xasuuqaya oo waxaad arkaysaa mararka qaarkood qof dhalinyaro ah oo qowlalaha uga xumbaynaya oo qabyaalad la qaylinaya innagana commentiska ku taageerayno oo aan dhiirigelinayno aniga shakhsiyadayda waxaan ilaaha ka baryaa inuusan cuqdadani igu abuurin oo waxaan iraahdaa mar waliba ilaahay ka baryaa rabbana la taj'al fi qulubina ghillan oo ilaahay waxaan ka baryaa inuu qalbigayga uusan gelin xiqdi iyo xaasidnimo walaalayaal dhalinyarada Soomaaliyeed waxba kama jiraan xiqdigan xaasidnimadan uurku taaladan nacaybkan qabyaaladan isyasidan laandheernimadan la sheegayo wax kama jiraan oo aqligiina dib u soo celiya oo aamina Soomaali inaysan kala sareyn karin nooc walba ay ahaataba aan dalkeena jeclaano iyo dadkeena hadaynan yeedan iska qaban waxa ina xukumi doona kuwa ubadkeena dab iyo cadaab ku gura ee aan isku duubnaano oo aan meel uga soo wada jeesano wanaagana aan ka shaqeyno waayo qaraxyadan maysan dhici lahayn hadday siyaasadda degan tahay
oo dowladnimada ayaa awood yeelan lahayd reer muqdishona way ka nasan lahaayeen xabaalahan maalin walba ay dul taagan yihiin markii ay siyaasaddu qallafsan tahay waxaa gacanta ka baxa amniga shacabkana way ku baaba'ayaan aniga waxaan aaminsanahay mas'uuliyadda qaraxyadan waxaa iska leh madaxda dowladda iyo kuwa mucaaradka oo aan agtooda qiimo ka lahayn xasuuqa shacabka Soomaaliyeed oo ay kala weyn tahay oo kaliya inay kursiga marun ku fariistaan 60 sano sidii dugaagta waan u fikirnay waxna ina tiri weysay markan aan u fikirno sidii bini aadamka weligaa ha dhegaysan isku eedaynta dhaxdoodii ah ee caqligaaga kaasho wacyigaagana kobci oo ka fakar cidda mas'uuliyadda iska leh waxaan ku soo gabagabeynayaa su'aal ah oo aan aad u jeclaan lahaa inaad comments iiga reebtaan waxaan jeclaan lahaa inaad ii soo qortaan 5 arrin oo aad qabiilkaaga ku jeceshahay dabcan waxaan rajaynayaa inaad qabyaaladda aad u jeceshihiin intiina badan laakiin hadiiba ay jirto waxa aad qabiilkaaga ku jeceshahay waxaan jeclaan lahaa inaad ii soo qortid 5 qodob ama 5 arrin aad iyo aad baad u mahadsan tahay nabada naas la nuugale nacfu waarale khayrul kalaami nabadgelyo